madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeenkii afraad kooyanay magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland ayaa caawa kulan gaar ah la qaatay simada iyo hoggaanka dhaqanka Puntland. qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in kulankaas uu ka dhacay madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland isla markaana uu ahaa kulan wada tashi. madaxweynaha kulanka uu ku welinayay wasiirka arrimaha dibadda Abshir Omar Haruush ayaa simada iyo waxgaradka Puntland waxa uu ka dhageystay talada iyo doorkooda horumarineed ee ku aadan adkeynta dowladnimada iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. kulanka ayaa caawa imaanaya iyada oo ay soo gabagaboobeen kulamadii madaxweynuhu maalmahan Garowe kula lahaa madaxda Puntland kuwaas oo isfaan lagu gaaray sida ay shaaciyeen dhinacyadu. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeeray dhowr xarumood ayaa warbixino ka dhageystay hay'adaha iyo wakaaladaha horumarinta biyaha, wadooyinka iyo maareynta kheyraadka maamulka bangiga dhexe iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Puntland. berigelinka hore ayaa la sheegay in madaxweynuhu dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho. safarkiisa oo markii hore la qorsheeyay inuu qaato 2 maalmood ayaa gaaray 4 maalmood.